Bismillahi Rahmaani Rahiim. Maanta waxaan idin tusi doonaa qaabka 1xbet-ka lacagta loogala soo baxo. Lacagaa tufaax ugu dirsatay, waa guuleysatay. Lacagtaas waxaa rabtaa inaa ugala soo baxdid 1xbet ahaan. 1xbet ahaan markaa ugala soo baxaysidna process la maraa jiro. Processkaasaa bilaabeynaa insha Allah. Ugu horeyn 1xbet-kaan gali doonaa. 1xbet-ka markaan galno sidaan noogu soo kici doonaa 1xbet-ka markaan galno. Halkaas ugu sareyso ayaan ku dhufaneynaa saddexdaas xariijimood. Markaan ku dhufano hadda waxaa lacag noogu jirto $50 iyo $2 noogu jirto. Kadib waxaan riixi doonaa my account yaan riixi doonaa. My account markaan riixno okay $50kaas ila $2 ma rabno inaan ka wada bixin $44 lacagaan ka bixin rabnaa. Okay markaan my account ku dhufano my account yaa ku dhufaneynaa automatic markaan my account ku dhufano then waxaan sii gali doonaa halkay ku qoran tahay withdraw aan sii gali doonaa. withdraw markaan sii galno halka ugu hooseyso waad aragtaa halkan cash ku qoran tahay 1xbet iconkeeda saaran tahay cash ku qoran tahay aan ku dhufan doonaa. Okay halkan waxaan gelin doonaa lacagta aan rabno inaan kala baxno. Okay ugu horeyn waxaan rabnaa inaan kala baxno $44. Then waxaan gelinaynaa select wuxuu ku leeyahay city aniga marka waxaan joogaa Banaadir aan joogaa Muqdisho Banaadir aan joogaa. So Muqdisho Banaadir aad soo dooranaysaa waa kana Muqdisho Banaadir haddii arki weyso halkaas ku qori kartaa Muqdisho Banaadir. Streetka qof walbo oo mob cash ka shaqeeyo ama si agent oo street uu kala joogo halkan ku soo qabanaa. Aniga marka waxaan joogaa streetka waxaan joogaa jidka aan leedahay jidka space dheh Moscow wuu ku soo baxaa automatically. Moscow markaa dhayso wuu ku soo baxaa waa kana jidka Moscow 24/7 days click ku sii marka. Kadib markaa intaa soo buuxisid oo lacagta ku qortid cityga soo gelisid Muqdisho Banaadir jidka Moscow aad soo gelisid kadibna confirm aad leedahay confirm buttonka confirm aad ku dhufanaysaa. Halkan wuxuu kugu diri doonaa text message kaas waxaa lagu soo diri doonaa marka mobilka automatically mobilka markii lagu soo diro waxaa sameynaysaa waa soo koobiyeynaysaa halkaana ku soo paste gareynaysaa.